حزب برواقو أنت وتلذ هاي يو سنتي كور رئيس الوزراء دكتور أبي حلقة للضغطي بشي أبريل لما كن يسدوي تلوك لنا سوريجو ديجان كصوماليدو وحكم دي هاي سيدا عن مرة فربنا كل عليني ديجان هذا فائدة وجبة عن كه يسبدل كي دلك كداعي يدو يسبدل بلارن دلك وكداعي أو دنك هرمركا يو نقالها يو سياسة يو بلاسية دبا هذا ديجان كنا وحان حقيقي كريم إن يسبدل في عنا وقروح بالله وكتشرو ولا ليال لبكون يو سدية توانكي تاريخ دا عالمية أما سنة كي لبكون يو توانكي دمات كيسي وهاي تاريخ دا إثيوبيا ديجان كانوا حالته قصنا وانكور هينا ديجان شعب كيسو أرجع حسين هاي عبسي بالله كتشرو كليجي تلقسنمو حيدايستay oo ku dhawaatay boqortooyo inay noqoto dadku ay wada cabsanayaan hareeraha la eegayo xorriyad ayna jirin xabsiyadu ay buuxaan dadkii miyiga iyo xoolo dhaqatada ahaa naftooda ay damaanad ay u haysan qofkii baxay inuu soo nabadgeliyo aan la hubin wadooyinka dadka fadhiya hareeraha ay eegayaan oo qof la hadlaya una jirin iyadoo sidaa tahay oo dadku ay ka warhayaan haddana ayna sheegi karin bal markay hadlayaan ay ka been sheegayaan noloshooda ayaynu isbeddelkan u bilowday oo talada xisbiga barwaaqo uu la wareegay ama ra'iisul wasaare abiy intii xisbiga barwaaqo uu sameeyay uu talada la wareegay xilligaas iyada waad ka warhaysaan in dadku ay ogaayeen waaqaca guud ee ka jira oo dhafoorkooda ay ka muuqatay laakiin wax ku dhawaaqi kara uuna jirin waxa kaliya ee la ogolaa in laga hadlaana ay ahayd horumar buunbuunisa oo aan jirin nabadgelyo xooga oo cabsi iyo agagax ku jirta wadanimo geesgaraac ah oo la isgeed garaacayo qofku ra'yigiisa iyo taariikhdiisa iyo halgamayaashiisa iyo una ka hadli karay in ahayd wax qarsoon maaha maanta waxaad ogtihiin in dadku ay xor yihiin in dawladda la dhaliilayo maanta fagaarahan aan taaganahay caawa jijiga laga dhaliilayo musharaxiin ka dhaliilayaan idaacado ka dhaliilayaan shacab dhaliilaya oo ka hadlaya jiraan ururo barnaamijyada ka doodaya ay jiraan oo doodaya oo la xisbigan iyo waxaas uu keenay waxaana muuna keenin halkaas khalad ka jira oranaya waxaad ogtihiin ciidamo u dhaga nugul shacabkooda oo dhibaataynayn isku dhacyo iyo isjeejid iyo kolla shacab gaaraan kolla ciidan gaar way dhici kartaa laakiin si guud cabasho guud oo hay'adaha amniga inayna jirin oo ay yihiin ciidamo si dhaba u ilaaliya xuquuqul insaanka ixtiraamana shacabkooda ayaa ogtihiin waxaad ogtihiin bilicda magaalooyinkeenu inay aad uga fiican tahay sida ay ahaan jirtay adeegyada aasaasiga sidii ay ahaan jireen in meel walba la laba jibaaray saddex jibaaray yaad ka warhaysaan waxaad ogtihiin midnimada shacabku maanta maalin ay ka adag tahay inayna soo marin arrintaas inta badan laga been sheego 7 sano ka hor waxa isku duldhaantaynayay laba wiil oo walaalaa wiil iyo walaalkii oo qoriyayso haysto oo la isku diray oo la isugu dhiibay yaa isku duldhaantaynayay maanta arrintaasi ma jirto habeeraatee beel kale aan dhex maraynin ma jiro qof meel u safrayo ka cabsanaya aano qabiil in dhibaato uga gaadho ka ganacsan karaynin ma jiraan ururo hubaysan oo deegaanka dhexdiisa dhibaatooyin ka wada marka laga tago isku dayga argagixisooyinka dalalka jaarka inay ka soo gudbaan isku daya nabaddu halkaas aan ka joognaa horumarka waad ogtihiin bilowga fiican ee jira nabadgelyada waad ka warhaysaan cadaaladda iyo xorriyadda dadka wax badan baa iska bedelay wax wada qaybsiga dadka Soomaalida ee deegaanka dhanka horumarka dhammaan gobolada deegaanka ka jira in wax la gaarsiiyo dadaal fiican baa ka jira waa suurtagal weli tabashooyin fara badan in meelaha qaarkood ka jiraan magaalada Jigjiga laga bilaabana meel aan oran karno dhammaan wixii ay u baahnayd way heshay oo waxay maanta u baahan tahay ma jiro haba yaraatee waa bilow waxaan ka hadlaynaa waa bilow marka aan tartan la galo dalka iyo marka aan dunida la galaba intaba meesha aan taaganahay waa meel runtii aad u hooseysa
oo ay ku timid in badan deegaankeenu colaad iyo dhibaatooyin ay ka jirtay in hogaamin sax ah deegaanka ayna ka jirin in iska qabsi waqti badan ku lumay ay keentay weeyaan sidaa daraadeed maanta waxaan taaganahay marxalad aynu ka soo gudubnay 5 sano oo ballanqaad ahaa oo aan oran karo 99% wixii xisbigu uu ballan qaaday meel walba uu ka qabtay iyadoo duruufaha uu ku shaqeynayo ee amniga ee dhaqaale ee siyaasadeed ee adduunka iyo deegaanka iyo mandaqaduba aynu ka warhayno oo xala farbadan saameynaya nolosha dadka ay jiraan haddana waxa la oran karaa ballanqaadyadii shacabka loo sameeyay xisbigu ka soo baxay haddana wuxuu ballan qaadayaa inuu sii xoojiyo dhammaan waxa aan ka hadlay oo dhan nabadgelyada sii xoojiyo horumarka sii xoojiyo cadaaladda sii xoojiyo xuquuqul insaanka sii xoojiyo xorriyadda qowlka uu sii xoojiyo midnimada shacabka midnimada hogaaminta in la sii xoojiyo ballan qaadaya waxa kaloo si gaar ah u ballan qaadaya in tayada waxbarashada oo aan isleenahay dadaalkii loo baahnaa lama gelin iyo adkaynta iyo casriyeynta hay'adaha cadaaladda iyo casriyeynta hay'adaha amniga iyo guriyeynta oo aan isleenahay iyaguna waa meelo u baahan hoos in loo eego in la dardargelin doono isbeddelka maanta laga dareemayo horumarka magaalooyinka ee bilowga mid la midana meelaha aan sheegay isagoo aan la qarin karin in la muuqan doono ayaan rajaynaynaa maanta ma jiraan dameero baasta ku casheeya oo beenbeena waad ogtihiin iyadoo shalay la odhan jiray dameeriga baasta ku casheeya oo dadku gaajo u dhimanayeen iyo daacuun iyadoo shalay la lahaa 99% kor baan u dhaafnay horumarka haddana hal magaalo oo biyo fiican lahayd ayna jirin magaalada jidka marka lagu daro laftigeeda maanta annagu saa ma odhanayno annagu waxaan leenahay dad fara badan oo baahan baa jira oo dadkeenna dad fara badan oo saboola oo noloshay ku nool yihiin ayna fiicnayn baa jira horumar la'aan badan oo meelo badan ka jirta caasimaddu ay ka mid tahay oo waddooyinkeeda iyo biyaheedu ay ka mid yihiin waxaan leenahay wixii la hayay ee talada ahaa ee dawladeed ee xukuumadeed waxaa lagu muujiyey isbeddel lagu dirsan karo muddo gaaban gudahood haddii dadaalka la sii laba jibaaro waxaan ku kalsoonnahay halka maanta dadku taagan yihiin noloshooda in kor looga qaadi karo oo horey loo socon karo taa waxay u baahan tahay amnigu inuu sii socdo xasilooni siyaasadeed inuu jiro iyo isxilqaan dheeraada oo dawladda iyo shacabkaba laga rabo ee loo baahan yahay ugu dambayn waxaan marna la dafiri karin in wax siyaasad u eg maanta deegaankeena uu ka jiro siyaasiyiin dawlad la dhaliilo xisbiyo tartamaya afkaaro la isweydaaranayo saxaafad looha lagu doodayo inay jirto waa bilowga siyaasad ku salaysan xadaarad iyo tartan weeye way dhammaystiran tahay oo boqolkiiba sidii loo baahan tahay iyadana ma odhanayno laakiin shacabku maanta waxa u tegaya dadyo kala duwan oo odhanaya xisbigaas ma ficila annagana doorta dimuqraadiyadda laga sheekaynayo waa intaa oo la sii xoojiyo waa markii ugu horreysay ee xorriyad noocaasa dadka iyagoon baqanaynin loo tago ee lala hadlay la yidhaahdo waxaasaan idiin qabanaynaa na doorta ee shacabka ay talo ku yeeshaan cid ay dooranayaan waxaan rajaynayaa insha allah 5 sano kadib in doorashooyin kuwan ka sixiisa badan kuwa aynu mararka qaarkood ku masayrno ama ku magaranaysaa isnidaano kuwaasoo kale anaguna ma noo dhacaan inay dhici doonaan room hal maalin laguma dhisin waa bilow wanaagsan horumarku waa bilow siyaasaddu waa bilow nabadgelyadu waa bilow cadaaladdu waa bilow wax wada qaybsigu waa bilow wax dhammaystiran ma jiro laakiin waxaan odhan karnaa marka loo eego halkaan taagnayn boqolkiiba boqol waa ka soo dhaqaaqnay boqolkiiba boqol baan odhan karnaa waan ka soo dhaqaaqnay waxaan joognaa meel deegaankeennu maanta uu astaan u yahay dalka oo dhan nabadgelyada wada noolaanshaha isdhexgalka isbadbaadinta meel uu tusaale u yahayba waxaynu joognaa deegaan maanta xorriyatu qowlka iyo xuquuqul insaanka tusaale u ah oo warbixinno xun oo shalay laga qori jiray maanta hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalligiiba ayna ka qorin maadaama ay jirin waxaynu taagannahay markaa meel wanaagsan meesha wanaagsanna waxaynu soo gaarsiiyey xisbiga barwaaqo inuu soo gaarsiiyey xildhibaanadiisana in mar labaad codkiinna aad siisaan weeye ujeeddada maanta ololahani waa ololii u dambeeyey
dhammaanteen aan barwaaqo dooranno barwaaqaynu barwaaqo ku gaaraynaa guushiya barwaaqada guul aynagu simay oo kabaynaan geeriyoonin aan barwaaqo dooranno waad mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu